2 sano ka hor dal weyn hodan ah balse daalan ayaa galay dagaal dad badani u maleeyeen inuu noqdo mid gaaban. balse maanta suudaan waxay u eg tahay dal dhaawac ah, magaalooyin la gubay, qoysas kala lumay, iyo carruur ku koraysa rasaas iyo rajo la'aan. 15 bishii Abriil ee sannadkii 2023 Khartuum. Subaxdii, magaalada waxay ahayd mid caadi ah. Dadku suuqa ayay u socdeen, carruurtuna iskuul. Cirka waxaa qabsaday qiiq, rasaas iyo qaylo. Waxaa bilowday dagaal u dhexeeya ciidamada qaranka Suudaan iyo kooxdii xoogga badan ee Rapid Support Forces. Labadan ciidan oo horey isugu dhowaa ayaa isu beddelay laba awood oo mid walba doonaya inuu noqdo kan keliya ee dalka maamula. RSF waa koox ka soo farcantay ciidamadii Janjawiid ee Darfur, kuwaas oo lagu eedeeyey xasuuqyo iyo xadgudubyo bini'aadanimo. Ciidanka qarankuna waa kuwii ilaalin jiray dowladnimada, balse markii xukunka Al-Bashiir la dumiyey, awooddii militariga ayaa noqotay mid lagu loolamayo. Dagaalkaas wuxuu muddo gaaban ku faafay dhulka oo dhan: Khartuum, Omdurmaan iyo Darfur. Dad badan way qaxeen, qaarna waxay u gudbeen Jaad, Sood Suudaan iyo Masar. In ka badan 10 milyan oo qof ayaa barakacay. 10 milyan naf oo nolol cusub raadinaysa, balse aan garanayn meesha ay u socdaan. Qisadaas ma aha mid gaar ah, waa sheekada malaayiin Suudaani ah. Ciidamada way isdilayaan, balse dadka rayidka ah ayaa bixinaya qiimaha ugu sarreeya: cunto la'aan, biyo la'aan, isbitaallo burburay. Suudaan waxay noqotay qariidad burbur ah. Laakiin meel kasta oo uu dagaal ka jiro, had iyo jeer waxaa jira qof rajo qaba. Waxaa jiray wadahadallo lagu qabtay Jiddah, Addis Ababa. In kasta oo ay fashilmeen, haddana waxay muujinaysaa in nabaddu weli tahay suurtagal. Su'aasha maanta taagan waa: intee in la eg ayay socon doontaa colaadan? Yaa u hiilin doona dadka aan codka lahayn? Goorma ayay Suudaan dib u heli doontaa magaceedii iyo sharafteedii? Suudaan maanta waa dal dhaawac ah, balse dadka Suudaani waa kuwo rajo leh. Qariidadda burburka maanta berrina waxay noqon kartaa qariidadda dib u dhiska iyo nabadda. Tani waa Suudaan, 2 sano oo dagaal. Qariidadda burburka. Nabaddu ma imaanayso si fudud, laakiin maalin uun codadka dagaalka waxay isku beddeli doonaan codad nabadeed.